daawade waa kuma gaashaanle sare maxamed daahir cabdulle sarkaalkii ugu saameynta badnaa taariikhda ee soo mara ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Haddaba daawade 40 jirkan aan dareeska iska siibin ayaa ku caanbaxay nabadeynta iyo xasilinta amniga isagoona gobolka Banaadir ka sifeeyay kuwa amniga lidka kuwa tuugada iyo kuwa ka ganacsada daraagiska intaba. Sidoo kale gaashaanle sare maxamed daahir cabdulle ayaa ka mid ahaa saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee hogaaminaysay dib u xureyntii magaalada Muqdisho. Haddaba daawade taliye maxamed daahir ayaa bilowgii 2011 u soo wareegsaday ciidanka booliiska Soomaaliyeed isagoona ka soo qayb qaatay nabadda ay ku naaloonayaan shacabka ku dhow 40 milyan ee ku nool magaalada Muqdisho. Haddaba daawade korneyl maxamed daahir ayaa soo qabtay xilal dhowr ah isagoona soo noqday taliyaha degmada Hodan, taliyaha qaybta Waliyo Cadde, taliyaha qaybta Galbeed, taliyaha xasilinta gobolka Banaadir iyo sidoo kale taliyaha howlgelinta gobolka Banaadir isagoona sidoo kale soo noqday taliyaha taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Haddaba daawade gaashaanle sare maxamed daahir cabdulle ayaa hadda ah taliyaha guutada ilaalada hay'adaha dowladda ee aadka muhiimka u ah. daawade gaashaanle sare maxamed daahir cabdulle ayaa dhaxda u xirtay inuu ka sifeeyo gobolka Banaadir tuugada, kuwa ka ganacsada maandooriyaha, kuwa dhibaateeyay shacabka ku nool gobolka Banaadir iyo wax walba amniga lid ku ah. Haddaba daawade korneyl maxamed daahir cabdulle ayaa ah howlkar iyo madaalo qaran. Sidoo kale gaashaanle sare maxamed daahir cabdulle ayaa ah sarkaal ay ku tashtaan shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed isagoona ah sarkaal aad looga jecel yahay gobolka Banaadir iyo dhammaan gayiga Soomaalidu degto. Haddaba daawade taliye maxamed daahir ayaa lagu garan og yahay firfircoonida iyo ilaalinta sharciga isagoona ka shaqeeya sidii xasilooni iyo nabad ay ugu noolaan lahaayeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed. taliye maxamed daahir cabdulle ayaa ah sarkaal khibrad badan kula xeel dheer dhanka amniga. Sidoo kale taliyahan khibradda badan ayaa waqtigiisa inta badan ku bixiya u adeegida shacabka uu mas'uulka ka yahay isagoona har iyo habeen u taagan sidii nabad ay ugu seexan lahaayeen 40 milyan ee ku dhaqan gobolka Banaadir. taliye maxamed daahir cabdulle ayaa ah nin aad u jecel dhalinyarada Soomaaliyeed isagoona xafiiskiisa ku qaabilo dhalinyarada ku dhaqan gobolka Banaadir iyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed isagoona jecel mar walba inuu ka xog wareysto xaaladooda. Haddaba daawade gaashaanle sare maxamed daahir cabdulle ayaa naftiisa u hibeeyay qaranka Soomaaliya adigoona ka dareemi kartid wejigiisa farxadda ka muuqato marka uu gudanayo waajibaadka qaranka. Haddaba daawade gaashaanle sare maxamed daahir cabdulle waxaanu ku dhiirigelinaynaa shaqada adag uu u hayo shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo sida nafhornimada leh uu har iyo habeen ugu adeegayo shacabkiisa Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed in mar walba ay garab taagnaadaan gaashaanlahan har iyo habeen u taagan u shaqayntooda iyo sidii amni ay ugu noolaan lahaayeen. Haddaba daawade gaashaanle sare maxamed daahir cabdulle shaqada qarankiisa uu hayo maahan mid lagu soo koobi karo muuqaal ama hadal intaba hase yeeshee waxa aanu ku dhiirigelinaynaa mar walba shaqada adag uu hayo bulshadiisa iyo sidii har iyo habeen ugu taagan yahay sidii nabad ugu seexan lahaayeen shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale geesiga naftiisa u hibeeyay shacabka Soomaaliyeed waxaanu rajaynaynaa darajo ciidan mid ugu sareyso inuu gaaro insha Allah. Haddaba daawade waxa aanu ka codsanaynaa inaad muuqaalkeena leeg saartid siina share gareysid. Sidoo kale waxa aanu ka codsanaynaa inaad leeg noo saartid followna dhahdid page-keena Sooyaalka Wararka si share garey si asxaab fara badan u sii gaaro. mahadsanid. Sooyaalka Wararka waa u gargaaraha bulshada aan hadalkooda meel dheer gaari karin mar walba waxaanu idiin soo gudbin doonaa dadka waxtarka u leh bulshada.